waa garoonka Cabdullaahi Ciise Maxamuud gaalkacyo oo la filayay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu khudbad ka jeediyo hase yeeshee daqiiqado ka hor inta aan ra'iisul wasaaruhu soo degin ayuu qarax ka dhacay afaafka hore ee garoonka saraakiil ciidanka dawladda ah ayaa la sheegayaa in ay wax ku gaareen qaraxa shacabka ayaa iminka saa u jeedaanba ka baxaya iridka hore oo ciidamada ay u fureen dhammaan dadka isugu soo baxay inay ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyaan ayaa iminka garoonka faaruujinaya waxaana dadka soo wajahay walaac ku aadan xaaladda garoonka ciidamada ayaa ku sugan saa u jeedaanba ilinka hore ra'iisul wasaaruhuna uu ka baaqday meeshii la rajaynayay inuu yimaado waxaa sidoo kale xusid mudan in ra'iisul wasaaraha ay safarka ku welinayeen madax kale sida madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo labaduba ka baaqday inay shacab gaalkacyo la hadlaan kadib qaraxa sida kadiska uga dhacay garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee gaalkacyo ilinkiisa hore iminka oo aan ku suganahay garoonka wali ciidamada ayaa barnaanka rasaas teelteel ka ridaya oo ay dadku ka gambanayaan sida aad u jeedaan waxaana ay dadku cabsi ka qabaan xaaladda maadaama goob ay isugu soo baxeen dhammaan dadka gaalkacyo oo u heelana inay ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyaan sida aboorka arkaysaanba lala beegsaday qarax wali lama sheegin khasaaraha dawladda ayaa meel kasta ku sugan saad arkaysaanba oo ilaalinaya garoonka wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal aad u mahadsantiin waa garoonka Cabdullaahi Ciise Maxamuud gaalkacyo oo la filayay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu khudbad ka jeediyo hase yeeshee daqiiqado ka hor inta aan ra'iisul wasaaruhu soo degin ayuu qarax ka dhacay afaafka hore ee garoonka saraakiil ciidanka dawladda ah ayaa la sheegayaa in ay wax ku gaareen qaraxa shacabka ayaa iminka saa u jeedaanba ka baxaya iridka hore oo ciidamada ay u fureen dhammaan dadka isugu soo baxay inay ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyaan ayaa iminka garoonka faaruujinaya waxaana dadka soo wajahay walaac ku aadan xaaladda garoonka ciidamada ayaa ku sugan saa u jeedaanba ilinka hore ra'iisul wasaaruhuna uu ka baaqday meeshii la rajaynayay inuu yimaado waxaa sidoo kale xusid mudan in ra'iisul wasaaraha ay safarka ku welinayeen madax kale sida madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo labaduba ka baaqday inay shacab gaalkacyo la hadlaan kadib qaraxa sida kadiska uga dhacay garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee gaalkacyo ilinkiisa hore iminka oo aan ku suganahay garoonka wali ciidamada ayaa barnaanka rasaas teelteel ka ridaya oo ay dadku ka gambanayaan sida aad u jeedaan waxaana ay dadku cabsi ka qabaan xaaladda maadaama goob ay isugu soo baxeen dhammaan dadka gaalkacyo oo u heelana inay ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyaan sida aboorka arkaysaanba lala beegsaday qarax wali lama sheegin khasaaraha dawladda ayaa meel kasta ku sugan saad arkaysaanba oo ilaalinaya garoonka wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal aad u mahadsantiin waa garoonka Cabdullaahi Ciise Maxamuud gaalkacyo oo la filayay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu khudbad ka jeediyo hase yeeshee daqiiqado ka hor inta aan ra'iisul wasaaruhu soo degin ayuu qarax ka dhacay afaafka hore ee garoonka saraakiil ciidanka dawladda ah ayaa la sheegayaa in ay wax ku gaareen qaraxa shacabka ayaa iminka saa u jeedaanba ka baxaya iridka hore oo ciidamada ay u fureen dhammaan dadka isugu soo baxay inay ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyaan ayaa iminka garoonka faaruujinaya waxaana dadka soo wajahay walaac ku aadan xaaladda garoonka
ciidamada ayaa ku sugan saa u jeedaanba ilinka hore risaaruna ka baaqday meeshii la rajeynayay inuu yimaado waxaa sidoo kale xusid mudan in risaaraha ay safarka ku welinayeen madax kale sida madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo labaduba ka baaqday inay shacab gaalkacyo la hadlaan kadib qaraxa sida kadiska uga dhacay garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ee gaalkacyo ilinkiisa hore iminka oo aan ku suganahay garoonka weli ciidamada ayaa bannaanka rasaas teelteela ka ridaya oo ay dadku ka gambanayaan sida aad u jeedaan waxaana ay dadku cabsi ka qabaan xaaladda maadaama goob ay isugu soo baxeen dhammaan dadka gaalkacyo oo u heelanaa inay risaaraha soo dhoweeyaan sida aboorka arkaysaanba lala beegsaday qarax weli lama sheegin khasaaraha dowladda ayaa meel kasta ku sugan saad arkaysaanba oo ilaalinaya garoonka wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal aad u mahadsantiin waa garoonka cabdulaahi ciise maxamuud gaalkacyo oo la filayay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu khudbad ka jeediyo hase yeeshee daqiiqado ka hor inta aan ra'iisul wasaaruhu soo degin ayuu qarax ka dhacay afaafka hore ee garoonka saraakiil ciidanka dawladda ah ayaa la sheegayaa in ay wax ku gaareen qaraxa shacabka ayaa iminka saa u jeedaanba ka baxaya iridka hore oo ciidamada ay u fureen dhammaan dadka isugu soo baxay inay ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyaan ayaa iminka garoonka faaruujinaya waxaana dadka soo wajahay walaac ku aadan xaaladda garoonka ciidamada ayaa ku sugan saa u jeedaanba ilinka hore ra'iisul wasaaruhu ka baaqday meeshii la rajeynayay inuu yimaado waxaa sidoo kale xusid mudan in ra'iisul wasaaraha ay safarka ku welinayeen madax kale sida madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo labaduba ka baaqday inay shacab gaalkacyo la hadlaan kadib qaraxa sida kadiska uga dhacay garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ee gaalkacyo ilinkiisa hore iminka oo aan ku suganahay garoonka weli ciidamada ayaa bannaanka rasaas teelteela ka ridaya oo ay dadku ka gambanayaan sida aad u jeedaan waxaana ay dadku cabsi ka qabaan xaaladda maadaama goob ay isugu soo baxeen dhammaan dadka gaalkacyo oo u heelanaa inay ra'iisul wasaaraha soo dhoweeyaan sida aboorka arkaysaanba lala beegsaday qarax weli lama sheegin khasaaraha dowladda ayaa meel kasta ku sugan saad arkaysaanba oo ilaalinaya garoonka wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal aad u mahadsantiin